waa tahay kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale barnaamijkii kusoo dhowaada garyaqaan oo caawa uu marti inoogu yahay abukaate xasan xaaji oo ka mid ah looyarada soomaalida ee iyagu ku takhasusay arrimaha sharciga waddankan. haddaba barnaamijkeennan caawa waxaynu kaga hadli doonaa sharciyada kusoo kordhay immigrationka, kuwa iminka la doonayo in la soo kordhiyo iyo wixii isbedelay guud ahaan. xasan xaaji waxa uu ka howlgalaa xarunta la yidhaahdo Haji London Solicitors, waxay ku taallaa xaafadda Wembley ee galbeedka magaalada London. waa xarun ay Soomaali leedahay oo markaa looyaro Soomaaliya ay ka howlgalaan. adeegyo badan ayaa xaruntaasi ka heli doontaan oo kala duwan oo ku saabsan dhinaca caawimaadda sharciyada waddankan. barnaamijkeennan caawa waxaynu kaga hadli doonaa waxyaabaha isbedelaya dhinaca immigrationka. qaybta hore ee barnaamijka waxaa mawduucan inoo sharaxi doona iyo waxaa la doonaya inay isbedelaan abukaate xasan. qaybta dambena waxaad soo weydiin doontaan arrimo badan oo ku saabsan dhinaca shuruucda oo uu idinkaga jawaabi doono xasan xaaji. abukaate kusoo dhowow mar kale barnaamijka garyaqaan ee Kalson TV. waxaa nooga warantaa maalmahan waxaa la sheegayay in ay soo baxayeen arrimo ku saabsan dacwado socda oo dhinaca immigrationka ku saabsan dalabka qofka marka uu dad keenayo oo kale lacagihii lagu dalacay. arrimahaas maxaad nooga sharaxi kartaa oo isbedelay iyadoo dad badan oo Soomaaliya ay aad u danaynayaan hadba wixii soo kordha sharciyada inay wax ka ogaadaan? bismillaahi raxmaani raxiim. nadaare aad iyo aad baad u mahadsan tahay. aad baan kugu mahad celinayaa maadaama arrimahan Soomaalida iyo arrimahaas aad danaynayso oo in laga hadlo sidii bulshada loo wacyigelin lahaa. kolley immigrationka waa meelaha ugu badan oo isbedelka ka dhaco. waxaana ma aragtay looladan leeyahay in lagu yareeyo dadka soo galayo waddanka. sidaad la socotaba mar sanadkii hore mar barnaamij noocan oo kale aan qabanay isbedelkii hirgalay bishii July 2012kii. waxaan kaga hadalnay lacag badan oo la soo rogay qofka haddii uu rabo xaaskiisa inuu keensado oo kale la yidhi in shaqeeyo isla markaasna sanadkii dakhligiisa uusan ka yaraanin 18,600 haddii caruur la socotana oo extra lacag ziyaado la socoto. barnaamijkeena horumarka waxaan ku sheegnay maalintiiba aan samaynayna berigay inaan xusuusto ma ogi in arrintaas haddii la fiiriyo ay ka imaan karto dacwooyin fara badan oo muwaadiniintii waddanka deganaa oo isla markaa soo guursaday ay rabaan inay dad keensadaan xaasaskooda ay dacwo furi karaan. waddankana dabcan muwaadinka xaq buu leeyahay, xuquuqdiisna waxaa waye nidaami qaanuun baa ma aragtay lagu qoray. marka dowladdu waxay soo rogi kartaa qawaaniin fara badan ayadoo ma aragtay u danaynayso siyaasadda markaas jirto. laakiin muwaadinka wax ka celinaya ma jirto in uu keeskii maxkamad u geeyo oo dowladdii arrintay waddo isku dayo inuu hor istaago. lacagtii oo shardi looga dhigay qofkii markaa inuu xaaskiisa keensan karo oo markaa ahayd 18,600 lacag badan bay noqotay. dalbaad fara badan baa la sameeyey. dadkii dhaladka ahaa iyo dadkii oo muhaajiriintii dib u imaaday oo sharciga qaatay labadiiba arrintii aad bay u saamaysay. dad badan baa marka dalabaadkooda la diiday. waxaa ka mid ahaa 3 qof oo khaas ahaan dalabaadkooda markii la diiday oo abiil qaatay, abiilkiina loo diiday because shuruucdii markii degneed oo maaragtay immigration ruleskii la raacay waxay geeyeen marka waxay sameeyeen waxa la yidhahdo judicial review. judicial review macnihiisa waxaa waye in ay ka hortagaan go-aankii home office mase entry clearance safaaraddii soo gaartay inay dhahaan go-aankaas sax ma aha. marka dacwadahooda way kala duwaneen. qaar waxay ku dacwoodeen go-aankaas safaaradaha gaareen oo diidmadaas ay gaareen
ma aha mid macquul ah waxayna macquul u ahayn go-aankaas wuxuu ka hor imaanayaa xuquuqdii ay lahaayeen oo isla markaas lagu kafaalo qaaday European Convention of Human Rights qofka waa loo ogol yahay inuu guursado yacni lama celin karo waa xaq uu leeyahay shakhsi ah maadaama taas la ogolaaday qofkii uu soo guursadayna inuu keeno oo la noolaado ayadana waa xaq ayadana lagu kafaalo qaaday marka judicial review maxkamadii markii la geeyey shantii bishii July maxkamada go-aan bay soo saartay ay leedahay immigration ruleskii soo baxay oo lacagtaas lagu soo rogay lama tuuri karo geba ahaanba laakiin habkuu u dhigan yahay loo diyaariyey hab macquule maaha waa in wax laga bedela waa in wax laga bedela maxkamadda marka waxyaabaha oo ay aad iyo aad maaragtay ay u sheegtay waxaa wey ruulka waxaa ku qoranaa qofka haddii safin uu leeyahay lacag u taasho lacagta la tixgelinaya ugu yar waxaa way 16,000 taas macquul ma aha bay dhaheen qofka safin hadduu haysto safin wixii uu haysto in loo tixgeliyo waa loo baahan yahay maxkamadda waxaa kale ku dartay qofka laga yaaba inuu family kale oo uu u degan yahay meesha oo support garayn karo sidii horeba third party support la dhihi jiray taasna ma aragtay haddiiba oo la heli karo ayadana taas tixgelin inay u baahan tahay waxaa kale tixgelin u baahan qofka inuu qualification uu leeyahay oo waddanka hadduu imaado uu shaqaysan karo oo uu lacag samayn karo durbo uu ku noolaan karo taasna tixgelin bay u baahan tahay waxaa kale tixgelin u baahan baa la yidhi qofka wuxuu ku noolaan karo nafteeda dadka isku dhaqaalo ma aha waxaa loo fiiriyaa qofka oo dakhliga ugu yar dadka oo benefitka dowladda ka qaato dakhli oo la garanayaa jiro oo dowladda qortay kaas naftiisa in sidii horeba loo fiiriyo in dakhligiisa ma aragtay uusan ka yareyn qof oo benefit qaadanayo waxyaabo badan baa maxkamadii ay kala dhigtay marka waxaa way maxkamadda marka waxay home office-ka ay u sheegtay in dib ay arrintan ugu noqdaan maadaama oo ruulkii dhan la tuuri karin ay isku dayaan inay ma aragtay ay qaataan ma aragtay recommendationkii iyo wixii ay suggestionkii ay soo diyaariyeen in maxkamadii home office-ka qaataan marka maxaa loo malaynayaa marka in arrintan ay noqon doonto home office waxay sameeyeen abiil bay ka qaateen arrintii haye abiil waxay qaateen bishii hadda na soo dhaaftay adii dhammaadkeeday bay abiil ka qaateen arrintaas haye 26 July bay ahayd abiilkii hadda wuxuu ku maqan yahay court of appeal haye maxkamadda darajada kale ka dambeysay marka su-aal baa soo baxday marka su-aasha soo baxday waxaa waye maadaama xukunkii dhacay oo xukunkiina dadka qaar ay ku doodayeen dad qaar waxay dhaheen waa discrimination oo waxaa waye dad qaar baa loola jeeda dad qaarna waxay dhaheen waaba macquul ma aha dad qaarna xuquuqdii yuu ka hor imaanaya judgeka intan buu tixgeliyey marka home office waxaa la yidhi marka cases baa socday hadda see la yeeli caseski dadkii hadda oo go-aamadan oo hadda judgeka soo saarayna ma aragtay oo u arko in faa'iido u yahayn hadda application ma samayn karaan marka xaaladda say tahay marka home office qoraal buu soo sameeyay uu leeyahay haddii shuruudihii kala dhan qofkii uu soo buuxiyo arrinta ay tahay un lacagtan inuu haysta in kale un su-aasha la rabo ma aragtay in go-aanka lagu gaaro qofkii wuxuu samayn karaa dalabkii wuu samayn karaa laakiin dalabkaas waxaa lala sugayaa ilaa oo maxkamada oo court of appeal ay go-aan ka soo saarto kolley dadka wax saadaleeya oo qawaaniinta aada u akhriya waxay leeyihiin xaaladda sidii hore ma ahaanayso yacni rajaa jirta in lacagtaas lasoo yareeyo judgeka hore wuxuu yidhi lacagtaas in lasoo yareeyaan ma aragtay in la fiiriyaan codsanayaa buu yidhi oo wuxuu yidhi lacagta oo hadda in laga dhigo uu markaa uu sheegay 13,000 13,000 marka la fiiriyo waa lacagtan oo qofkii oo benefitka qaato haddii sanadkii laisku celceliyo oo dakhligiis uu noqon karo
marka kolley hadda maxkamadu keeska hor yaala maxkamada wixii ay go-aan ku gaari lahayd kolley ma garanayno laakiin dooda hadda taagan iyo dadka sida loo arkayo in maaragtay xaaladaas waxay isku bedelayaan marka su-aal muhiima meeshaan soo baxaysa muddo waxaa ka shaqaynaysay abukaate arrintan immigrationka waad ogtahay baahida dadka soomaalida ay qabaan dhinaca immigrationka dad badan oo soomaaliya ayaa doonaya in ehelkooda ama xaasaskooda gaar ahaan waxa hadda laga hadlayo inay keenaan maxaa is leedahay marka dadka soomaalida ah oo iyagu dad qaxooti ah income fara badanna aan heli karin oo qaarkood laga yaabo inaysan shaqayn ay ku adkayd shuruudihii hore hadda maxay rajaa oo arrintan gelinaysaa dadkaas maxaa u qaban kartaan adinka oo kale aniga kolley xaruntanada hadday noo imaadaan qofkii horta wuxuu u baahan yahay in macluumaad oo fara badan helo isla markaasna in xaaladiis guud si fiican loo daraaseeyo way noo imaan karaan xaaladooda guud waa daraaseyn karnaa keesaskoodana waan fiirin karnaa applicationkana waan u samayn karnaa applicationadaas noocaas waan samaynaa laakiin lacagtan fara badan hadda dadka hor istaagtay waxaa muuqataa ma aragtay keeskan rajo weyn baa ma aragtay geliyey marka maadaama keeskan socdo dad qaar ba le waxaa waye keeskii dad qaar ba rajabeelay waxay lahayn lacagtaas haddaan haynin iska joojiya oo warka haynin horumarkan hadda laakiin dad badan oo hadda is yiri okay maadaama maxkamadan go-aankan maxkamada aad iyo aad u adag yahay home office-kana laga yaabo inay ku guul daraystaan oo home office-kana dhahayay maaragtay application hala sameeyo laakiin go-aanka ma gaarayn in maxkamadan sare go-aan soo gaarto ma ogi dad qaar baa hadda waxay bilaabeen in applicationadii ay sameeyaan sababtoo laga yaabo haddii applicationada keeskii lagu guulaysto laga yaabo keesiskii ugu horreeyeyba dadkii in loo ogolaado dad qaar dadka noocaas hadday go-aansadaan in applicationadaas loo sameeyo waan la sameynaa madda kale oo lacagtan hor istaagtay oo hadda arrinta isbedeshay lacagtan oo fara badan oo dadka hor istaagtay dadka Europeanka ah ma khusayso qofka Europeanka haddii uu soo guursado haas oo kale asaga waxa uu dacwoon karaa lacagtan fara badan lagama rabo sababtoo qawaaniinta Europe baa arrintaas diidaysa marka dawladdu kuma soo rogin arrin kale jirto oo maadaama lacagtan la soo rogay dad badan ogeen oo hadda soo baxday oo la yiraahdo surrender sin case la yiraahdo aad iyo aad waqti hore u dhacay keeskaas waa kees oo European looga khuseeyo maadaama dadkii Europe oo halkan imaadeen oo EU members ahaa oo ka shaqaystaan halka oo xaasaskooda iyo ahalkooda in loo keeno loo ogol yahay dadkii Britishka ahaana lacagahan fara badan lagu soo rogay qofkii Britishka ahaa ma noqon karaa European ma noqon karaa EU citizen ma noqon kara oo ma ka faa'iideysan kara arrintan okay waa kees hor u dhacay laakiin dad badan hadda ay ka warhaynin oo la galin ka dhig qof British citizen ee waddankan joogo hadduu ka tago German tago asagoo German joogo uu soo shaqaysto halkaas joogo maadaama uu German tago ama waddan kale European tago halkaas uu ka shaqaystay wuxuu noqonaa qof oo European oo freedom of movement-gii oo Europe loogu diray isku socodkii shaqadii uu ka faa'iideysanayo okay qofkii meeshaas hadduu joogo marka ahalkiisa uu keensan karaa isagoo European ah waddankaas uu keensan karaa okay maadaama uu keensan karo markuu soo noqonayo maadaama European uu ka soo shaqeeyo oo halkan imaanayo asagoo British ah wuxuu soo galay asagoo European ah asagoo European hadduu soo galo uu dacwoon karaa waa sidii qawaaniinta European ku socona marka taas oo kale reerkiisa wuu ku keensan karaa haddii even lacagtan fara badan ay waxaa shardi ah qofkii inuu halkan ka tago oo waddan Europe tago shaqaysto oo halkaa muddo ku noolaado kadib hadduu soo noqdo European loo timaado waa tahay daawadayaal mar dhow telefoonada ayaa nagu soo wici doontaan iyadoo aan ku jirno qaybihii hore ee lawyerka waa diyaar garoobi kartaan wixii ku saabsan dacwooyinka dadka loo dacwoonayo oo kale ehladooda iyo halka ay joogaan ayaanu barnaamijka si weyn ugu faaqidi doonaa iyo wixii shuruuc ku saabsan in tala la idinka siiyo
ayuu looyarka idinkaga jawaabi doonaa adigoo soo wici kara telefonada shaashada ku qoran meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal hase aatee inta inaan telefonada u gudbin hal su-aal baan weydiinayaa xasan xasan marka mawduucan runtii dad badan ayaa baahi u qaba oo u baahan in arrintan si weyn loo lafaguro marka arrimo kale oo aad iyagana waxaa jiray isbedbedelayay muddadii ugu dambeysay waxaa jira dhibaatooyin badan oo dadka ay qabaan oo ku saabsan dhinaca caruur dambiye inta gasho la leeyahay waa la celina waxaasoo kale waxyaabaha aad dadka ka caawini kartaan maxaa ka mid a run ahaantii arrimahaas aad baan ugu jirnaa dad badan waan ka caawinaynaa dad badan waana la soo xiriireen waxaa jira dhalinyar fara badan oo maaragtay jeelasha ku jiro oo markii horena adi dembiyaal kala duwan loo qabtay dhammaystay maaragtay xabsigooda markay dhammaysteen xabsigooda la geeyey meelo oo lagu hayo dadka detention centerga run ahaantii arrintaas dhib weyn oo taagan wey sababta oo legal aidigii isbedelkii lagu sameeyey dad qaar waxaa weeye waxay dhib ku noqotay inay looyaro helaan oo maaragtay ku caawiyo keesaskooda marka habka arrinta u dhacaysana marka qofkii lasoo qabto oo la xiro oo jeelkiis intuu dhammaysanin ka hor shuruuc fara badanoo soo baxaa jirta oo khusaysa dembiyada dadka gala in waddanka laga saaro waa automatic deportation waxa la yidhaahdo haddiiba qofka lagu xabsigiisa uu ka badan yahay 12 bilood waxaa la siinaya waxa la yidhahdo automatic deportation in waddanka laga saaro yacni waxaa stage fara badan buu marayaa qofkii stageka ugu horreeyay qofkii in la yidhaahdo waraaq loo soo diro waxaan rabnaa waddankan inaan kaa saarno dembiyaad naga gashay haddii aad rabto in maaragtay sii joogto foomkana soo bixi qoraalna soo sameey sababtaad aad u rabto waddanka inaad u joogto badi marka maadaama xabsi ku jiraan qaar lawyer ma haystaan qaarna haddii foomamkii iyo representationkii iyo qoraalkii si loo sameeyo ma aqaanan marka waxaa dhacda foomkii muddadii ilaa 20 beri oo kale in la siiyaa laga yaabaa inay ka dhacdo 20kaas beri markay ka dhacdo kadib waraaq kale loo soo diraa la leeyahay anaga hadda waxaan go'aansanay hadda waddankii inaan kaa saarno dembigii maadaama aad gashay marka haddii aad rabto waddankii inaad sii joogto marka abiilaan ku siinaynaa within 5 beri gudahood maadaama oo xabsi ku jiro soo samey marka dadkii abiilkii oo 5 days loogu talagalay 5 beri laga yaabo inay abiil qaadanin haddii abiil qaataan marka waxaa laga yaabay in keeskii maxkamadda tago oo laga hor tago oo loo fiiriyo dadkoodii qaraabadooda halkan joogo xaaladii oo waxaan la yidhahdo article 8 loo fiiriyo maaragtay article 3 qofkii haddii waddankii lagu celiyo in xaaladiisa ammaan ahaan khatar geli karto kadibna loo ogolaado inuu waddankii joogo arrimahaas dhan qofkii waynaya marka waalidiinta iyo qaraabada dadka oo dadkaas xiran joogo koley waa inala soo xiriiri karaan xaruntan oo ku taasho maaragtay Wembley Park Empire House koley Wembley Park Empire House marka arrimahaas aadan maaragtay dadku uga caawinaa telefoonada intaan u gudbin su-aal kale oo muhiima sidaad ogtahay waddankan waxaa jooga dad badan oo ajnabi ah oo meelo kala duwan ka yimid oo qaxootiya inta badan dadkaas waxay samaystaan shirkado ganacsi iyo hay-ado shaqaalaha ka shaqeeya waxaa arkaysaa mararka qaar kambaniyo ay leeyihiin dad eeshiyaana oo dad shaqaalaha waddankoodii ka keenaya halkan ka shaqaalaysiinaya waxaa arkaysaa kuwo kale oo afrikaan ay leeyihiin oo dad afrikaana dalalkooda ka keenaya inta ka shaqaalaysiinaya waxaad moodaa inay aada u yar tahay inkastoo soomaalidu ay waddankan ku cusub tahay haddana waxay leeyihiin businessyo badan shirkaday leeyihiin hay-aday leeyihiin qaar badan baa shaqeeya oo runtii waddankan aada looga garanaya marka arrintaasoo kale haddii shirkadaha iyo hay-adaha iyo dadka businesska leh ee soomaalida ah ay u baahdaan dad soomaaliya inay soomaaliya ka keensadaan ama meelo kale ka keenaan maxaa hor istaagi kara adinku see u caawini kartaan mise soomaalida looma ogola oo sharciga miyaa u diidaya maya dadka kale arrintaa maxaa ka qabataan run ahaantii arrintaas soomaalida koley weli kuma buraarugin yacni inaad horta soo qaato aad baan u jecelahay laba dhinacaan ka eegaya dhinaca u horeeya horta shirkadooyin fara badan halkan jiro
waddankan jooga shaqaalo badana maaragtay oo local ah hadda waddankii samaystay naftooda horta waxay u baahan yihiin advisor la siiyo shaqaalaha naftooda hadda wiigii hadda lasoo dhaafay waxaad la socotaa iyo wiigii ka horey ma ogi in UKBA-da maaragtay meelo badan ay maaragtay aadeen oo maaragtay baarataan dad badan oo illegal inay ku shaqaynayaan lagu qabtay shirkadii lagu qabto ayadoo qof oo sharci lahayn u shaqaynaya lagu qabto waxaa la ganaaxa lacag oo 10,000 iyo wixii ka badan laga yaabana hataa qofkii mas-uulka in la xiro kolley shirkadaha horta dhinacan legalka ah noocaas ah waxay u baahan yihiin inay looyaro ay helaan marka waxyaabo fara badan oo markii loo imaado la weydiinaya jir oo hadda markii loo imaado la yiraahdo okay waxaasna tus haddii tus waayaan qofkii oo la tusino oo qofkii la yiraahdo wixii aan ka rabnay yani shuruudihii kama soo baxayn waxaasa samaysay marka shirkadahaas oo kale waa inoo imaan karaan in ayaga consultation oo kale aan siino xafiisyadooda aan tagno waxyaabihii documentation ay u baahan yihiin haddii immigrationka soo ziyaarto oo kale horta waxaas inaan la samayno taas waa mid dhinacaas waa ayadu way u baahan yihiin dabcan dad badan oo hadda oo lagu qabtay jiro oo lacag badan fine la ganaxay taas in laga hortago oo horta ay noo imaadaan oo mise looyar kale u tagaan arrintaas maaragtay ay fahmaan midda kale dabcan marka mashruuc dhan oo qawaaniin dhan oo home office-ka soo diyaariya jirta dadkan businesska lagu keenayo laba nooc ay u kala baxaan dad investors oo lacag haysto dabcan wadamadan carabta meelaha joogaanba rabo inay waddankan degaan oo sharci qaataan oo British noqdaan oo isla markaas ma aragtay caruurtooda iyo ahalkooda soo dejiyaan halkan ayagoo ma aragtay investmentiga iyo ganacsigaas ka faa'iidaysana waa jid la mari karo oo investmenta la dhahaa lacag xadadan oo la iska rabaa jirta application la sameynaya jirta qofkii rabo noocaas oo kale inuu sameeyo oo halkan usoo guuro mise business ka samaysto sharcina degenaansho uu ku helo waddankaana uu dego yani immigrationku wuxuu u sameeyey jid meel la maro صح jidkaas Soomaalidu inay aad ugu baraarugsanay marka jidkaas oo kale waan haynaa oo waan ku caawin karnaa cidii u baahan mid kalena waxa way jid kala jiro oo intra company transfer la yiraahdo in shirkad halkan leedahay ay degan tahay meel kalena ay ku leedahay xafiisyo oo kale marka shaqaalihii inay soo celiso ayadana jida jiro ayadana loo maro marka ma jiro cid gooniya oo leh laakiin nidaamkaas kasta oo buuxisa nidaam ka qayb gali kara nidaam kala jiro oo qof shaqaale caadi aad waddanka kale ka keensan karto sidii su'aasha baa qusaysay nidaamkaasna shirkadan halkan joogta nafteeda waxay u baahan tahay in application samayso home office-ki laysan la siiyo laysanka marka la siiyo kadib waxa way ayada nafteeda wax looga baahan yahay jiro shuruudahaas ay buuxiso shuruudaha markay buuxiso kadib laysanka la siiyo laysankaas naftiisa qof lagu keeni karaa marka taasna ayadana waa sameynayna marka arrimahaas dhan waa arrimo aan ka shaqeynaa waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Abukaate Xasan ayuu kaasi ahaa oo qaybtii hore runtii aad noogu sharaxay dhowr mawduuc oo kala duwan waa tahay daawadayaal markan waxaan soo gaarnay qaybtii telefoonada ee barnaamijkeenan garyaqaan oo caawa martii noogu yahay Abukaate Xasan Xaaji oo ka howlgala xarunta HH Xaaji London Solicitors oo ku taala xaafadda Wembley waan filayaa inay dadka Soomaalida cidii doonaysa inay macluumaad ka ogaato shuruucda ay xarunta la xiriiri doonto waa xarun ay leeyihiin looyaro Soomaaliyeed oo dhawaan laga furay xaafadda Wembley daawadayaal markan qadadka telefoonka qofka ugu horeeya ayaan siinaynaa iyadoo aan ka codsanayno dadka inay xoogaa soo koobaan su'aalahooda si dad badan ay fursad ugu helaan looyarka hello wa alaykum asalaam walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlays magacayga waa cali xaaji wahay barnaamijka ma yaqaanlaa cali xaaji soo dhawow walaal looyarka uu ku maqlayaa maxaa weydiinaysaa waxa weydiinaa masantiin dhamaan adiga iyo looyarkaba marka waxa su'aasha weydiinaa waxay tahay ilmo adal ayaa jiro Kenya haye marka waddanka marka iska dhiibay 2007 ma sheeganin haye
marka sharciga oo 5 sanaad haysto waa iga dhacay kii kala dalbada kii 10 sanaad isoo direen oo 1915 Sharif Foundation haye marka waxaan rabay in oo arrinta dacwada ma furi karaa taasaan rabay inaan ka go'aado lawyerka waa tahay waa mahadsan tahay cali xaaji haye cali xaaji waxaan ka codsan lahaa in haddii uu horta London joogo noo imaado faahfaahin fara badan inaan keeskiis aan galno waraaqihii home office waraaqihii maaragtay hore loo buuxiyey sharcigiis aan fiirino maadaama oo listigii ugu jirin mar hore u sheegin dabcan waxaa la dhihi karaa caruurtan adima dhalin dabcan maxaa u sheegin weysay haddii aad caruurtaas markaas ogeed inay jiraan marka DNA iyo arrimo kale in maaragtay la sameeyo in loo baahdo laga yaabo marka arrin in la arko dacwadiis marka in noo imaado aan rajo ya fiicnaan leh si detail cali waa mahadsan tahay waa filayaa in aad dhakhtarka la xiriiri doontid wixii macluumaad oo ku saabsan dhakhtarka iyo goobta uu ka shaqeeyo iyo nidaamkeedana telefoonka ayaa dib u soo wici doontaa markuu barnaamijka dhammaado si lagu siiyo telefoonada iyo emailada gaarka ah ee uu leeyahay abukaati xasan xaaji qofka ku xiga ayaan u gudbaynaa halow 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 waa ka xunnahay qofkaas waana maqli waaye qofka ku xiga ayaan u gudbaynaa halow 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 halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaaga walaaliyo meeshaad joogtid walaalo magacayga Saynab aadan allah Bristol jooga Saynab walaal soo dhawow abukaataha wuu ku maqlayaa maxaa weydiinaysaa waa mahadsantahay abukaataha salaam su'aalo waxaan rabaa in abukaataha weydiiyo guur cusub ahay haye marka waan xariisanay inta hadda sharcigan la soo hubay lacagtaan tirada badan la soo ogaan xariisanay haye marka hadda laba wiil camal naga xareysan tahay ma lacag xadadana inay safety ku ahaataa la rabaa mise kor 18000 banki sigiska 600 inay rabaan inay ku soo gashay rabaan intaas aan ka weydiin lahaa haye ku jir bal Saynab waxa laga yaabaa lawyerka inuu su'aalo kale ku weydiiyo haye ma fahamtay su'aasheeda sharcigeeda aan weydiin rabaa ay British miya haye ma yaraada British mihi baasaboorka 10 sano aan wata travel documentiga haye marka baasaboorkaas aan wata haye ku jir walaal haye kulli arrintii aan hadda ka hadlayo way arrintii oo maxkamadda hadda la geeyay oo hadda go'aan la rabo inay ka gaarto 18600 lacagtii la soo rogay طبعا هذا سفارة iyo oo dadka go'aamaha gaaray arrintaas ay ku shaqeeyeen ma lacagtaas ka tiraali noqo lacagtaas waa xareysanay haye ay waa ku xareysanay wixii waa xareysan laakiin bangiga inay lacag ku jirto ma la rabaa calashan sharciga inay lacag xadidan ku jirto ma la rabaa lacagta go'aanka uu soo rogay waa ku xareysanay ma lacagta meesha lagu qoray waa lacagta oo dakhliga oo qofka intii soo galaysa sanadkii marka la isku darto bangi inay ku jirto iyo looma baahan waxa qofkii uu shaqeynaa markii shaqeeyo marka deymaan la rabo bishii haddii intaa soo galayso multiply lagu dhufto adii 12 bilood waa inay ka badataa lacagtii oo soo galaysay marka macnaheedu maaha qofka inuu account lacag isaga shubto kaliya maya taas saving lacagta qiib hab oo maaragtay calculation gooni loo sameeyaa jirta marka saving taas walaal wali haysta ma loo baahna soo ma ahan saving looma baahan laakiin waxaa la fiirinayaa oo wixii oo ku soo galaya sanadkii marka waa tahay Saynab waa mahadsan tahay si dadka su'aal kale wata waqti haye walaal haye soo koob haye soo koob waa ka xunnahay Saynab telefoonka ayaa ka go'ay dad badan ayaa telefoonka ku jira oo aan doonayno inaan fursad siino si ay barnaamijkeenan uga faa'iideystaan qofka kale ku xiga ayaan fursadan siinayaa halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid magaca maxamed baa la yidhaha walaalandan kala soo hadlayaa waan salaam adiga iyo lawyerka waa kaa qaadna walaal maxamed soo dhawow maxaad weydiin lahayd lawyerka
walaal waxaan weydiin lahaa wiil baan 5 sano ka hor ka soo guursaday wadankii haye marka maxay to hadda waxa dhacay safgaraway baa dhacay marka waxaan weydiin lahaa dhakhtarka inuu lawyerka inuu sharciga la soo bixin karo aniga la'aantay macnaha wiil baad soo guursatay marka halkaan timaadeen waad isqabateen waa kala tagteen marka in marka weli isagii uu adiga kugu xanibnaan karo iyo inuu kaa madax bannaan yahay ayaa rabtay inaa ogaatid lawyerka wuxuu tala kaa siin lahaa uu sharcigiisa heli karo yani oo sharciga aad haysatayna muxuu ahaa hollandaise haye kolley hollandis hadday ahayd oo waddankan ay umu maxamed ay joogto oo ninkiina ay keentay ay kala tageen qawaaniinta EU labada ruuxa haddii ay maxkamad isla tagin haye oo waxaa la yidhaahdo degree absolute haye la siinin yani furitaan daa'ima maxkamad waddankan bixinin weli waa isqabaan haye laakiin waxaa dhib ku noqonaya marka haddii uu sharcigu uu ku joogay ka dhaco ayadana keeskii maaragtay ay support garayn applicationki la sameynin dabcan in sharcigii loo cusboonaysiiyo uma badan yani in loo diiday u badan tahay sababtoo waxaa way waxaa la rabaa mar kastaba inuu ahaado family member waxaa waa in xaaskii isku qoran yihiin oo detailkeeda iyo applicationkeeda wixii ay hareeyaan marka haddii separation meeshii dhacay oo la kala maqan yahay marka application hadduu sameeyo waxay u badan tahay in la diido gooni ahaan waa in marka ay iyada ay mar walba ku jirto waa in applicationki mar walba ku jiro isla markaas applicationku jiritaan mehe waxaa la rabaa ayada inay shaqayso as a European oo halkan business ay ku jirto mise qof ay u shaqayso waa in shaqo ay ka hayso waa tahay umu maxamed aad baa u mahadsan tahay waan filayaa jawaabta uu siiyey dhakhtarka inaad fahamtay qofka kale ee ku xiga dad badan baa u qaatay dhakhtarka in doctorka uu yahay laakiin doctor weeye waxaan ula jeedaa doctor abukaate xaaji waa nin doctor ah macnaha dhinaca culumta ayaan ka hadlaynaa marka dad baa dhakhtar u qaatay marka lawyerka ayaa nala fadhiya marka aad baa u mahadsantihiin markan waxaan siinayaa qofka ku xiga halo salaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga walaal iyo meeshaad joogtid walaal london baan joogaa umu maxamed baa la yidhaahdaa umu maxamed walaal soo dhawow barnaamijka waad la socotaa lawyerka ayaa noogu martiya walaal lawyerka waa salaamahaya iyo adigaba haye walaal soo dhawow annagana waa ku salaamaynaa marka walaalo waxaan rabay lawyerka su-aal inaan weydiiyo gabar baa halkan ka tagtay iyadoo travel documenti wadata haye gabadhii famil bay raacday yaman markay tagtay iyadoo yaman joogta ayaa muxuu ahaa waxaa ninkii ay raacday oo travel documentiga ka qaatay haye markii ay damacday inay soo noqotayna wuxuu yidhi sharcigaadi waa dhuma waa meeqa jir gabadha waa 18 jir adigu waa 20 jir bay hadda ku dhowda adigu 29 18 adu meelahaas camal haye waa qaangaar weeye haye marka refugee state bayna qabtay markay halkan ka tegaysay haye gabadhi xagga markay damacday inay soo tagto sharciga ma hayso waktigiina wuu dhaafay ay soo noqon lahayd oo adiga ay waktiga tigidkeedii ahaa haye arrintaas markay dhacday oo sharcigana uu u diiday iyadiina waxay kusoo noqotay ay weyday niman muqallis ah oo yeman joogay u tagto oo Soomaali ah haye waxaa la yidhi bal in xataa bakosweyn aysan xataa wax raad oo yani ku saabsan documenti ah haye ninkii loo muxuu ahaa muqalliska wuxuu yidhi maalinkaa timid haddaad ii sheegto iyo date of birthgaadi waxaan tegayaa muxuu ahaa ii sheeg madaarka oo yeman sancaan tegayaa waxaan kuu soo bixinayaa wixii aad kusoo gashay maalinkaas koobigii lagaa sameeyey haye koobigii baa loo soo bixiyey marka haye koobigii markii loo soo bixiyey waxay yidhaahdeen waxay geysay meesha UCNR kay geysa oo qaxootiyaadka qaabilsan haye adigu sheeko dheer bay ahayd markii hadda ugu dambeysay arrintii sidii loo waday waxay yidhahdeen waxaan ku siinaynaa biisaan ku siinaynaa
fiisahaas markaan kusino waxaa laga doonayaa imaaraadka fiisaha haye baasaboor soomaaliya fiisaha lagu guursada keen haye baasaboorkii soomaaliga bee misana haddana sancay ka samaysaa haye waa la siiyey markay soo celiso baasaboorkii keentay baa kuwii imaaraadka yaa lala hadlay waxaa la yidhi baasaboorka waa lasoo sameeyey fiisii baan rabnaa haye imaaraadka waxay yidhahdaa annaga waxaan shaqo kuma lihin africa ha ku noqoto haye gabadhii africa maadaama marka hore africa kenya laga soo geliyey kenya ha ku noqoto gabadhii marka ayadana sancay joogtaa sharcigii ma hayso inti kastoo macnaha raal documentka koobigiisi bay haysataa yani waxay ugu noqoto kenya ma hayso arrintaasaan walaalo oo ila rabnay inay arrintaas wax naga weydiiyaan information ayna siiyaan haye ma fahamtay ha kulley waxaan dhihi lahaa maadaama oo halkan waddankan ay iska dhiibtay oo recordkeeda yaallo travel documentkii lambarkiisa lahaayo dabcan baasboortkii travel document uu ka maqan yahay ayagana haddii meesha ku go-aaman tahay ay soo noqon karin safaaradda ugu dhow oo British Embassy ee tegaysaa waa inay tagtaa yani saasa u wanaagsan ay u sheegto qadiyada saay u dhacday isla markaasna ay tusto travel documentkii iyo numberkiisa marka safaaradda laga yaabo inay soo weydiistaan halkan oo feelkeeda la baaro oo haddii la ogaado qofkii sax ahaa inay ahayd ayada arrintaasna ay ku dhacday oo u diyaar garoowin haddii dhibaato oo ay maaragtay ku dhacday ay tahay waxaa laga yaabaa inay fiisa soo siiyaan ay ku soo gasho arrintan oo kale dadka Soomaalida waxaa moodaa in mararka qaar dhibaato kala kulmaan looyarada waddankan tallaab kasta oo la qaadayo dadku waxay u baahan yihiin inay looyara caawiyaan arrintan oo kale maxaa laga caawin karaa hadda qofkan oo kale inta qofkii safray baasaboorkiisii ka lumay ama laga qaatay waxaa laga yaabaa qofka xataa luqad badan uusan aqoonin dhibaato badan ay la kulan ma family hadda halka joogaan waa inoo imaan karaan haye recordkeeda haddii la hayo waana noo keeni karaa haye marka waxaan isku dayi karnaa in safaaraddii ugu dhow aan la xiriirno oo aan u sharxano aan dhahno arrimahaasa jirta qofkaas imaanaya waa mahadsan tahay abukaate xasan maxamed waan filayaa inaad adiguna aad fahamtay jawaabta uu ku siiyey looyarka qofka ku xiga ayaan u gudbaynaa halo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam walaal magacaaga iyo meeshaad joogto walaal maxamuud ciise la yidhahda london baan joogaa maxamuud walaal soo dhawow barnaamijka adoo ka faa'iidaysanaya haye halo maxamuud ha walaal waa dhowahay aad baad u mahadsantihiin tv-ga waa salaamaya iyo barnaamijka aadka quruxda badan adaaro waa daadihinaysid waa ku salaam walaal haye iyadina garanaysa aqoonta ummadda Soomaaliyeed niyow waxaan qabaa su'aal runtii su'aalo badan baan qabaa laakiin mid uma dee muhiimsan inaan ka gaarsiiyo su-aashiidu waxa weeyaan waxaan iskursanay gabadha waxaa sharciga markii hore waxa lagu keenay ma garanaysaa nin baa keenay haye wuxuu ku keenay sharcigan hadda gabadhii maxaan ku idhahdaa Hollandiis oo kale ah macnaha sharcigan Europeanka ah wuxuu keenay gabadhii muddo markay dee aad wada joogeen sidii systemku ahaa oo ma garanaysaa maadaama runtii dee siyaalaha way noognahay ma garanaysaa ay u shaqaysto oo kale walaalo codkaaga wax yar kor ma u qaadi kartaa haye way kala tageen ma garanaysaa codkaaga wax yar kor u qaad walaal waayahay adigu gabadhii markaa way kala tageen ma garanaysaa ninkii ma fahante haye dabeedna gabadhii markaa anigu waan isguursanay markay kala tageen gabadhii markaa iyadu shaqay wadataa oo shaqay heshay iyadii wax yar noogu soo celi waxaad tiri gabar baan soo guursaday miyaa adiga miyaa gabadhii halkay joogtaa haye adiga marka gabadhii waa isguursateen adoo maqan maya anigu waa joogaa anigu London baan joogaa anaa guursadayba haye dabeedna gabadhii hadday kala tageen sharciguna waa shantan u ahaa haye marka maxay mustaqbal ku yeelanaysaa gabadhii haddii magaramata ninkii ay kala tageen aniga ay caruur dhasho oo kale maxay arrintaas saameyn ugu yeelanaysaa halkaa tala iga siiya ma fahamta waxaan u fahmay in nin xaaskiisa uu keensaday ninkaasna uu ahaa European haye sidaan u fahmay sax wuu isaxi doonaa haddii aan qaldanahay haye kadibna ay kala tageen ninkii keenay oo ninkeeda ahaa
طبعا isaga guursaday sharcigii ay ku imaateen uu ahaa sharcigii ninkii hore oo European kulay inay saasoo ma okay marka taas haday tahay marka kulay European haday ahayd oo ninkeeda hay European haday ninkeeda ahaa European lagu keenay oo ninkiina ay kala tageen laba mushkila iyo meeshii jirta marmar Soomaalida aad ugu buraarugsaneen ay dhici karto laga yaabo hadda kale uu noo sheegaya in ninkii hore ay kala tageen oo Islamically ay isku fureen saas ma waa isfureen ninkii maxkamad Islaamiyad laakiin shariicada Islaamka isku fureen هذا sidaas bay noqonaysaa laakiin maxkamad systemkiis okay marka shariicada Islaamka inay isku fureen oo isla markaas ay tagin maxkamadii kale oo wadankan marka qawaaniinta wadankan hadii loo noqdo sharci ahaan la fiiriyo wili ninkii hore ay isqabaan صح laakiin shariicada Islaamka way kala tageen waa shariicada Islaamka laakiin ninkii hore sharcigeena marka hadii ay rabto inay qaadato oo ay cusboonaysiiso maadaama ninkii European-ka ahaa oo keenay ay kala tageen ma cusboonaysin karto يعني هدي واحد domestic violence اللي يراده دبعتك كلا دعدي أرمى كلا أو exception يا رماس لقيها لكن هدي عادي أيوة كلا تجين ما لكن هدي سي جوكتو ودنك سي جوكتو وين ما أرتي application كلا بحسو أيكو عدين سنيك كلا تجين أو نين كان هذا أو هذا أي أجورس ده أو كلا application كأيضا دولة دلوا شيءين وحنا صعنا هاي وين الشيء شرعي هورا in la yiraahdo marka hadii arrimahaas oo kale lawyer u baahantiin kulay detail ahaan inaan arinta u ogaano oo macluumaad fara badan aan ka ogaano oo baahanahay baaritaan marka waa noo imaan kartaan xaruntan insha Allah waa maadsantahay Maxamuud qofka kale ee ku xiga ayaan fursad siinaynaa si uu isaguna uga faa'iideysto barnaamijka hello magacaaga walaal magacayga Liibaan xagee ka soo hadlaysaa London Liibaan soo dhawow lawyerka uu ku maqlayo walaal lawyerka waxaan rabaa inaan weydiiyo aniga waxaan hadda rabaa inaan dalbado baasaboorka travel document-ga kan oo 10 sano haye marka waxaan rabaa magaca hadda aan haysto magac kale inaan ku dalbado marka ku dalba kala magaca hadda oo document-ga hadda aan haysto inaan iska bedelo magaca kale inaan apply gareysto oo people ama lawyer inaan u tago kala travel document-ka lagu sameyn karaa documenti noocay haysata adiga midka caadiga oo 10 sano oo refugee macnaha indefinite ma haysataa marka waxaa rabtaa inaad travel document dalbatid oo magaca indefinite-ka kuugu qoran la bedelo oo magac kale travel document-ga lagugu qoro oo ku soo baxa ma la sameyn karaa ma garanayo waa weydiinaynaa loo kulay waan fahmay su'aashiis magaca ma la bedeli karaa oo travel document cusub ma xusan karaa طبعا waa la bedeli karaa magaca hadii aad ku qanacday magacii hore inaad iska bedesho magac cusub aad la baxdo deed poll waxa la yiraahdo la sameeyaa anaga waan sameeynaa deed poll-ka naftiisa marka lawyer kale waa u tagi kartaa aniga waan oo imaan kartaa bedelmaya travel document-ka kaliya ma sharciga iyo wixii soo dhan baa bedelmaya magaca Soomaa deed poll macnihiisu waxa way magacii hore aad lahayd ba maalin u joojinaysaa wixii maalintaas ka dambeeyay magac cusub aad la qaadanaysaa marka maadaama uu travel document cusub uu codsanayo marka formkii la buuxiyay iyo travel document-gii hore iyo deed poll-kii wixii iyo qoraal hadii anaga kale qoraal aan raacina hadii aan leenahay magacaas maalintaas la bixiyo laakiin sababo ma jira sababo soo lagu bedeli karo mise waa qofku iska bedelan karaa wadanka waa sharciga magaca waa la bedeli karaa hadii qofku ku qanco magacaas inuu iska bedelo waxa qaanuuniin diidaya oo ma jirto waa aad baa maasan tahay qofka ku xiga hello السلام عليكم وعليكم السلام walaal magacaaga iyo meesha naga soo waaysid waa عبد الرحمن برمجان عبد الرحمن soo dhawow walaal lawyerku ku maqlaya maxaa weydiinaysaa walaal waa idin salaamayaa iyo garan yaqaankaba assalaamu calaykum waa ka qaadno walaalay soo dhawow walaalo waxaan ku weydiinayay qof familkayga kamid ah ayaa wuxuu haystay bas indefinite-kii Geneva 10 sano ahaa haye
markaas walaalo wuu ka dhacay hadda 10kii sanaba wuu joogay markaas October ayuu ku egyahay waqtigii haye marka hadda hadii uu sharciga istigaado dalbo sidee buu u diri miyuu iska diri karaa mise waxaan doonayaa wax in la iga siiyo walaalo cadayn hadda hadii ay ka dhigo waxaan u malaynayaa sharci 10 sano inuusan jirin ma jiraan kii janeefadii indefinite ahaa weeye walaalo okay haddii aan كل هاد waxay ka hadlaysaa umalayna travel document muduu leeyahay travel document weeyaan muduu leeyahay laakiin kan sharciga la siiyay indefinite leave waa ma dhacayo wuu dhacaya laakiin haddii aad wadanka ka baxdo 2 sano ka badan ka maqnaato wuu dhacaya laakiin haddii aad wadanka waa indefinite leave marka uu dalbanayo waa imika ma sidaasaan ku diraa mise sidee buu ahaa kulay lawyer inaad tagtaan waa fiican tahay sidii foomkii wixii in laydinla diyaariyo oo laydinla diro kulay aniga arrimahaas waan ku caawinaa dadka laakiin waxa dhacay waa travel document sharciga ma dhacin maadaama waqti wadanku uu ka bixin marka travel document cusub buu xareysanayaa kii horena wuu la xareynayaa mid cusub hadda 10 sano loo soo diray waxa dhacay waayay Cabdiraxmaan wixii tafaasiil dheer waxaad kala soo xiriiri kartaan Bukaati Xasan Xaaji iyo looyarada kale Soomaalida xaruntooda HH Xaaji ay ku leeyihiin xaafadda Wembley waa maadsan tahay qofka kale ku xiga hello السلام عليكم هلا ولا سودو waxaad weydiin lahayd lawyer-ka xagee ka soo hadlaysaa walaal waxaan ka soo hadlay walaal waxaan ka soo hadlayaa Austria magacayguna waa Cabdi Xuseen Cabdi xagee ka soo hadlaysaa Austria walaal soo dhawow magacaaga maxaa leedahay Cabdi Xuseen Cabdi عبد حسين ولا السود ومحاول ويدين له اللويرك marka hore walaal wada salaamaya television-ka waxaan aad iyo aad u salaamaya kalstan iyo barnaamijka labada nin ana daadinaya professorka iyo adiga Nadaar Cabdullaahi Nadaar aad baan salaamaya waa mahadsantahay walaal haye marka walaal waxaan rabaa barnaamijka anaha wuxuu ahaa xaaskayga ayaa waxay joogtaa wadankan Austria hadda aan wada joogno marka anigu markii hore waxaan joogay Soomaaliya iyadoo halkan ay joogtay waxay istaan marka sharcigan darafada dokumentiga haystay marka aan ka qaatay kadib maaragtay guurkeyga wuxuu ka soo dhacay Ethiopia markuu guurkeyga Ethiopia ka dhacayna hawshii waa noo hagaagi weydii marka anigu si kale ku soo baxay transit anoo ku ah marka wadankan u soo socdo Jarmalka qabtay Jarmalka markay qabtana fariiga qaaday isagoo marka weli wax sharciya oo dokumenti siinin baa waxaan imid marka wadankan imid oo aan xaaskayga u imid waxaan weydiin lahaa abukaataha barnaamijkaas sidee noogu suurtageli karaa inaan halkan ku wada noolaano waa tahay cabdi waa mahadsantahay waxaa ka hadlaysaa sharciga Austria miya inaan Austria macnaha abukaataha in uu aada uga hadlayo arrimaha UK Austria ma ka hadashaa Austria halka iga khusayso waxaa waa European Union oo maadaama European-ki yahay waxaa la yiraahdaa Dublin Convention oo Europe-tan dhan ay qayb ka yihiin qofka haddii uu meel Europe wadamadan soo maray farihiisna laga qaaday meelahaas طبعا meeshii ugu horeysay ee soo maray fare laga qaaday asylum-kiis iyo qaxootigiis lagu qaabilaya oo wadan kale hadduu tago even wadankii hore lagu celina oo farahaas kaga dhiibay kule inta iga khusayso waa intaas oo Dublin Convention Austria way ku jirtaa wadamadan kulli way ku jiraan Europe haddii oo wadan iska soo dhiibay hore laakiin maadaama oo xaaskiisa ay meeshii joogto oo asagana soo galay طبعا European Convention of Human Rights aan hadda ka hadlayay nafteeda waa khusaysa oo article 8 oo in familiyaasha la kala geynin oo isku meel ay joogaan
dabcan waxaan kula inuu lawyer u tago oo local ah Australia oo arrimahaas iyo xaaladiisa sida wax u sheego sidii oo European Convention loo fiirin lahaa. waa tahay Cabdi Xuseen waa maadsan tahay waan filayaa inaad qaadan doonto talada lawyerka qofkii waxaan maraynaa gabagabadii ilaa dhowr qof ayaan jecelnahay inkastoo dadku ay aad noo soo wacayaan waqtigana uu gabaabsi nagu yahay qofka ku xiga halow السلام عليكم. وعليكم السلام magacaaga walaal meesha naga soo wacaysid walaal waa ku soo laabtay Zainab aadana ahay awqaataha waxaan weydiin lahaa su'aalo ugu dambaysa laba sano ismoognahay guurka cusub ma nagu qabsan karaan maxaa u tagi weysay idin ko laba sano ismoog mise waa ma adima waxa tahay gabadhii Zainab na weydiisay markii hore su'aasha ahayd lacagtii ahayd taa lacag barneed ha xasuusataa waxaa xasuusta su'aashan dambe marka su'aasha maxaa tiri su'aasha dambe waxay ii tahay waxaa ismoognahay laba sano marka oo guur cusubna waaye maxaad u tagi weyseen inay igu qabsadaan ma laga yaabaa mise waa ma aragtay foomkayga waa un iska ma aragtay waxa ma ka walwalayn loo kale markaan ku laabtay yani ma run ahaantii waxa wanaagsan markii oo xaaladahaas oo kale la gelayo in si fiican qoraal loo sameeyo oo la arko qofka documentiga anigu hadda oo kale qofka markii noocaas noo imaado waxaan fiirinaa qofka taariikhdiisa iyo xaaladiisa baan diyaarina marka waan u sharaxnaa home office-ka mase safaarada oo kale marka haddii ay su'aalo ku jiraan su'aasha hadda ay sheegayso waan kala maqanahay muddadaas waan kala maqneen muddadaas islama hadalnayn waxaan weydiinaa sababta ku dhacday maxaa way jawaabtana nasiya marka client nasiya oo kale marka aan u sharaxna marka haddii keeska si fiican markii foomka la buuxinayay qoraalna la sameeyay xaaladda si fiican loo sharxay marka qofka go'aanka ka gaarayo keeska marka waa si fiican buu u fiirinaya marka wixii su'aalaha haddii ku diidana oo applicationka lagu diidan kulay appeal baa u bannaan qofkii wara maxkamad inuu tago oo si fiican u sharxo waa tawaasan tahay Zainab waxaan filayaa in lawyer aad arintan ula tagi doonto si tafaasiil badan lagu siiyo hadaa London iyo meelaha ka dhowdahayna aad lawyerada Soomaalida u imaan doontid oo sida Xasan iyo groupkooda ka shaqeeya xaruntooda HH Haji London Solicitors oo ku taala xaafadda Wembley ee galbeedka magaalada London aad baa u mahadsan tahay daawadayaal qofka kale ee ku xiga ayaan siinaynaa fursadda ilaa laba qof ayaan ku soo gabagabayn doonaa qofkan iyo qof kale qofkii nasiibka u yeesha halow qofkan ayaa telefoonka ku jira halow السلام عليكم وعليكم السلام magacaaga walaal iyo meesha aad joogto قاسم لندن قاسم soo dhawo walaal maxaa weydiinaysaa lawyerka waxaan weydiin lawyerka qofka tiisanka ee raba inuu dacwoodo ilmo u dacwoodo uu dhalay isagu horena aan u sheegan maxay tahay shuruudda laga doonayo caruurtaada rabtaa inaad u dacwootid horeyna umaadan sheeganin maxaad haysataa marka waad ku dacwoonaysaa ma British aad haysataa ma sharciga 5 sano ma indefinite maxaad haysataa British baad haysataa horeyna umaadan sheegin hadduu rabaa inuu dacwoodo marka wax shuruuda oo ma shaqeeyaa marka ma shaqeysaa haye maxaa kale okay kale qofkii caruur u dacwoon rabo oo British ah oo halkan degan oo shaqeysto oo caruurtiina ku filanaan karo guri iyo maaragtay nololba u haayo wuu dacwoon karaa applicationadaas entry clearance wuu samayn karaa laakiin keeskiis arrinta ugu muhiimsan maadaama hore u sheeganin caruurtii siduu sheegayo oo kulay sababta u sheegan waayay taas isaga og laakiin su-aasha meesha ka soo baxaysa rikoorkiisa haddii dib loogu noqdo caruurtaas adima dhalin baa hortaagan maadaama oo rikoorkii ay ku jireen caruurtii taas macnaheeda waxaa weeye wuu noo imaan kara haddii London uu joogo si oo DNA loo qaado caruurtii biological father inuu yahay loo cadeeyo taas haddii la cadeeyo haddii adima dhalin meesha sheekadii waa ka baxaysaa laakiin arrimihii kale iyo shuruudihii kale inaan maaragtay si fiican aan ugu sharaxno marka Qaasim waa mahadsan tahay fadlan haddii aad London joogto la soo xiriir lawyer qofka ugu dambeeya ayaan siinaynaa fursadda
innagoo kadibna barnaamijka soo gabagabayn doona qofka ugu dambeeya halow halow halo salaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga iyo meeshaa nagala soo hadlaysa walaal saare manchester baan kala soo hadlaya ya saare manchester baan kala soo hadlaya waxaan rabay inaan lawyerka weydiiyo haye walaal qof baasaboorka travel document Europe kala haysta iyo indefinite leave wadankan travel document ma karaa oo noo leeyahay tan labaad travel documentiga ma haysan karaa hadhow marka Britishka dalbado ma fahmin qofka travel documentiga ma sii haysan karaa isagoo British ah miya hello waa maasan tahay qof British noqday travel documentigiisii ma sii haysan karaa travel document macnaha oo uu ku dhisan yahay oo kan refugee-ga macnihiisa ugu weyn qofkan wadan kale uu ku imaaday dawlad baa mas'uul ka ahayd dawlad baa mas'uul ka halkan uu imaaday waa isdhiibay macnaheeda mas'uuliyadii iyo dawladdii wadanka kale horta waa iska dhiibay oo wadankan magangeli u soo doontay marka travel document la siina muddadaas laakiin haddii British uu qaato wuxuu la mid noqonayaa meesha uu ka baxo xuquuqdii qofkii British uu helaya marka passportka British waa inuu qaato mar hadduu qaato qof citizen way marka wuxuu ku soconayaa British passport travel document kuma soconayo waa tahay waa mahadsan tahay Sahra waan filayaa in aad fahamtay jawaabta lawyerka inkastoo barnaamijka aanu gabagabayn lahaa si aad dad badan baa ku jira telefoonka waxaa siinayna ilaa dhowr qof oo kale si ay barnaamijka uga faa'iideystaan marka lawyerkan waxaan ka codsanaynaa inuu waqtiga uu inoo kordhiyo maadaama uu waqti ina siiyey marka qofka ku xiga ayaan siinaynaa fursad halow halo walaal Abdullah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum salaam magaca walaal Abdullah la dhahaa waxaan ka soo hadlayaa London Abdullah haye soo dhawo walaal walaal waxaan u baahanahay waxaan rabaa inaan dalbado passportka British-ka waxa ay dhamaaday sano tii kale siiyeen marka waxaan rabaa maxay deeyeen shahaadada oo lagu dalbayo mid iskoolka miya ama mid oo community-da okay waa mahadsan tahay marka uu rabo inuu dhalashada wadanka dalbado shahaadada la isku xiraayo oo luqadda ah ma mid inuu iskool ka soo qaatay ba mise mid community-da ay sameeyaan oo wax lagu barto laftirkooda meelaha community kale way ku xiran tahay waxa muhiim ah in oo meesha la isku barayo oo shahaado lagu qaadanayo wadanka diiwaan gashan wadanka inay ka diiwaan gashan tahay home office la aqoonsan yihiin waa muhiim waxa la isku barayna waxa way waxyaabaha shuruudaha la iska life in the UK waxa la yiraahdo nolosha UK taariikhda iyo wixii waxa la isku baray waxa way subjectyo iyo mawduucyaal khaas ah jira oo in la barto loo baahan yahay mawduucyadaas haddii ay arrinta kaafagaraynayso oo ay college-kii mise community-giina ay register garaysan yihiin taas waa lagu dalban karaa marka waa isku mid hadduu iskuul ka soo qaato iyo haddii meel home office ku aqoonsan yihiin uu ka qaato shahaadada haddiiba la aqoonsan yahay waa tahay waa mahadsan tahay aad waa mahadsan tahay bukaate Abdallah waa mahadsan tahay qofka kale ku xiga halow assalaamu calaykum وعليكم السلام magacaaga walaal meesha joogtid walaal London baan joogaa Ilyas baan la yiraahdaa walaal waxaan garyaqaanka weydiin lahaa waxaan haystaa baasaboor Hollandees waxaan 16 sano waa jooga waxaan rabaa baasaboorka Britishka inaan xareysto marka deganaansho miyaa la iiga baahan yahay inaad bedelatid baasaboorka Hollandeeska miyaa wadankan 16 sano ma deganaansha ku deganayd bis waa iska joogtid waa iska jooga deganaansho kuma deganayd haddana waa shaqeeya waxa way waa European law hadana marka regulation marka qawaaniinta ma aragtay European-ka freedom of movement yani in la isku socon karo la shaqaysan karo qofka deganaansho wadan kale ka qaadan karo marka guud ahaan wax shardi ah leeyahay waraaqdaas qofkan muddadan halis ha ku joogo ma jirto laakiin wadamada waxay sameeyeen nidaam oo qofkii lagu mariyo sidii oo uu ku qaadan lahaa sharcigii wadankaas marka ayadu waxay ku xiran tahay 16 sano
ma qof iska joogay shaqaysanayna miyay ahayd mase qof shaqaysanayay miyay ahayd hadday taas tahay oo shantii u dambeysay ay proof garayn karto in halkan ku joogtay iyadoo shuruudihii European Unionka iyo regulation waxay dhahaan oo waddankan iska leeyahay shuruudihii ay ka soo baxdo looma baahan in waraaq khaas oo degenaansho ay ka haysato home office in principle looma baahan laakiin home office-ka si oo arrintaas uu ku xaqiijiyo maadaama dadka Britishka qaadanaya shuruudo kale jiraan waa in qofka indefinite leave haysto intuu Britishka noqonin ka hor moogta marka way codsan kartaa indefinite permanent residence aan lahaa way codsan kartaa anagu dadku waan ku caawinaa way noo imaan kartaa permanent resident marka la siiyo kadib ay markaa baasaboorka bedeli kartaa hadday ay rabto xaaladda hadda ay jirtana in British ay ku codsato nafteeda way noo imaan kartaa taas nafteeda waa la samayn karaa laakiin documentation fara badan iyo qoraal fara badan in loo diyaariyo waa tahay aad baa u mahadsantahay Ilyas waan filayaa talada lawyerka inaa qaadatay qaybihii ugu dambeeyay ayaan weli ku jirnaa dhowr qof aad baan runtii ayagana aan uga mahad celinaynaa sida ay u jecel yihiin barnaamijka uga qayb qaataan marka ugu dambeysa waxaan sheegi doonaa numberka gaarka ah ee lawyerka qofkii doonaya inuu si gaar ah u waco maadaama telefoonada ay aad u buuxaan marka qof walba ha sii diyaarsado qalinkiisa iyo warqadda si numberada gaarka ah ee lawyerka ay ka wici karaan ay nooga qortaan laakiin markan telefoonada ayaan ku jirnaa هلو السلام عليكم ولا عليكم السلام magacaaga walaal meesha joogto walaal Xaliimo Shabeelle dhaha magaalada London baan joogaa soo dhawo walaal Xaliimo haye walaal ha walaal waan salaamaya adiga garyaqaankaba waa ka qaadno walaal soo dhawo haye waa ku maqlaynaa walaal haye su'aashaada walaalo waxaan doonayaa waxaan dalbaday dhalashadii ayaan dalbaday bishii 3aad sanadkan haye marka anigii waxaan dalbanay 2 ciyaal oo dhalay haye walaal waa ku maqlaynaa TV-ga ha nagala soconin telefoonka nagala soco wax yar bay kala dambeeyaan haye marka wiilkayga ayaa macnaa wuxuu qaan gaaray marka isaga iyo family ahaan baan ku dalbanay haye marka walaal waxa dhacday wiilka uu soo diideen oo ayaan bas buu raacay marka baskiiba waxay yiraahdeen naag booliisad kala furtay haye ganaaxiina waan bixiyay isla maalintii waan ka bixiyay haye marka ilaa hadda way iga aaminsan magacayga waan bedelay warqadii magacaan ku bedelay way ii soo direen haddii aan ku soo ogolaano magacaas aan kugu siinayna ilaa hadda way iga aaminsan yihiin marka lacagtii wixii dhan way iga haystaan ma garanayo dadkii aan la dalbaday oo dhan 3 bilood iyo adigu 4 week meelahaas ay ka haysteen waxaan u maleynayaa arrintaadu inay u baahan tahay lawyerka inaad si gaar ah u aragto oo dokumentiyadaada iyo arrimahaas aad u keento waa sheeko runtii u baahan sababaha keenay in wiilka iyo problemka iyo waxa dhan in la baaro haye sax in hadii London joogto waxaan dhihi lahaa lawyer kala u tagto aniga noo imaato dabagal baa loo baahan yahay in loo qoro home office-kii sababta wiilka hortiisa waa dambigii maadaama horta foomka marka la buuxinayo ku xiran tahay si loo buuxiyay arrintan in la sheegay haddii la sheegin kolay way soo diidayaan haddii la sheegana ma aragtay waa soo cadeyn marka inay noo imaato waa fiicnaan lahayd si fiican aan u fiirino waa tahay aad baa u mahadsan tahay qofka ugu dambeeya ayaa siinaynaa fursaddan si isagana uu uga faa'iidaysto maadaama aan marayno gabagabadii barnaamijka halo magacaaga walaal isaaq yunusa la yidhaahdaa isaaq xaggee joogtaa london aan joogaa london haye walaal adoo soo koobaya waqti badan ma hayno maxaad weydiin lahayd lawyerka cabdiqaadir adiga oo abukaata xasan qaydin salaamay haye walaal waa kaa qaadnay salaad kadib miyow waqtigan waa idinku yaryahay waa ujeedaa haye walaal wax yarna dhegeyso fadlan TV-ga iska gaabi markaa nala hadlaysid telefoonka bes nagala hadal haye
haddaadan ka faa'iidaysanin numberka uu kaa go'i doonaa dad badan baa ku jira qadka marka waa aad baan kuu qiimeynaynaa inaad barnaamijka ka faa'iidaysatid fursadaada haye waa mahadsantihiin adiyo abukaataada haye walaal haye su-aasha ugu horeysa wiil aan dhalay oo hadda 20 sano jiro oo talyaaniga ka dhalay aniga sharciga intaan leeyahay oo British passport waa qaatay intaan deganahay haye isagana talyaaniga ku dhashay 20 sano jiro marka waxaan rabay in maartay intuu soo wareego dokumenta ahaan magaciina waa ku jiraa magacii talyaanigana waa wataa waata isaga marka waa ku fahnay su'aalan ku weydiinaa isagu wuxuu haystaa dhalasho talyaani miya dhalasho talyaani adigana waxaad haysataa dhalasho ingiriisa marka waxaad rabtaa inuu adiga kuu soo wareego uu kula noolaado ila noolaado waxyaabaha lagaaga baahan yahay inuu wiilkaagaas talyaaniga joogo uu kula soo midoobo in shaqo lagaaga baahan yahay wax kale lagaaga baahan yahay rabtaa inaad ogaatid waa mahadsan tahay isaaq marka waa jawaabta ka sugaynaa loo jawaabta maadaama oo talyaani yahay oo talyaanigana European Union yahay freedom movement gan hadaa sheegay uma baahan fiisa passportka talyaaniga haduu haysto tikidkiisu soo gaarsanaya maaragtay xaajiga uu imaan kara oo noolaan kara magaaladiisu uu shaqaysan kara wax ka baran kara wax kasta waa u furan yihiin maadaama oo European uu yahay waa tahay aad baa u mahadsantihiin daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkan oo caawa aan si weyn uga mahad celinayno abukaate xasan xaaji oo ka howlgala xarunta la yiraahdo HH Haji London Solicitors oo ku taala xaafadda Wembley ee galbeedka magaalada London haddaba waan filayaa dad badan inay sugayeen in ay telefoonada ka qortaan lawyerka si ay markaa ula soo xiriiraan numberka telefoonka gaarka ah ee abukaate xasan cidii doonaysa inay dib ula sii waxyaabo kale u sii weydiiso oo uu u suurtagali waayay telefoonka stuudiyaha waxa uu yahay 079 587 589 53 mar kale haddaan ku celiyo 079 587 589 53 marka numberkaas gaarka ayaad abukaataha ka wici doontaan waan ka xunnahay dad badan baa telefoonka ka buuxa inaan waqti siin kari weyno iyadoo waqtiga uu naga dhacay aawadeed waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii barnaamijka ka soo qayb galay iyo kuwii ay u suurtageli weysay ee isku dayay inay barnaamijka ka qayb galaan iyo kuwii hawada naga daawanayay meel kasta oo ay dunida ka joogaan intaba si gaara waxaan ugu mahad celinayaa abukaate xasan xaaji oo waqtina siiyey si uu barnaamijkan dadka Soomaalida uga caawiyo toddobaad walba xiliyadan oo kale ayaa barnaamijkan daawan doontaan waa barnaamijka Garyaqaan ee Kalson TV stuudiyiisa magaalada London barnaamijku waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabduqaadir Nadaar ah farsamada waxaa naga caawiyay Cadaawe iyo Saadaq intaan mar kale kulmayna meel kasto aad joogtaan waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh